kulanti wanaagsan daawadayaal waxa aad u xoogeystay warka sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo inuu isbedel ku sameeyo hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiye Amiir ma noqon doonaa gudoomiyihii ugu muddada xilhaynta yaraa ee gobolka Banaadir soo mara. Sababaha keenay iyo sidoo kale culeysida jira ayaan kula wadaagaya. Haddii aad nagu cusubtaan nagu soo bir muuqaalkana si share gareey aragtidana qaybtood faallada ugu dhiibo aad oo maasanta. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka fakaraya in isbedel ku sameeyaan hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir ku dhawaad 6 bil kadib markii la magacaabay gudoomiye Maxamed Axmed Amiir. waxaa jira culeysyo badan oo gobolka Banaadir ka jira waxayna isa soo tarayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeysay tan iyo markii xilka laga qaaday gudoomiye hore ayadoo taasi ay sababtay in madaxweynaha Soomaaliya laba jeer uu xafiiskiisa ugu yeero gudoomiye Amiir ku amro inuu qaado tallaabooyin si loo socodsiiyo shaqooyinka gobolka Banaadir laakiin labadaas jeerba gudoomiyuhu wuxuu ka cabanayay shakhsiyaad isaga madaxweynaha u keenay isbaray oo magacaabistiisa kaalin ku lahaa markii ugu dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu Amiir u sheegay inuu yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho qof kasta oo saaxiib la ahaa ee madaxweynaha u keenayna ay ku ekeed markii uu madaxweynuhu magacaabay wixii hadda ka dambeeyay inuu yahay mas'uul dawladeed xilka qaadistiisa iyo sidoo kale shaqooyinkiisana laga maamuli doono dawladda dhexe laakiin ilaa hadda waxaa muuqata in gobolka Banaadir uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin badan waxyaaba ugu waaweyn oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiye hore xilka uga qaaday kana oo ka filayay oo laga waayay waxaa ka mid ah in uu kaalin weyn ka qaato dardargelinta iyo abaabulka ama u diyaarinta dadka ku nool magaaladan doorashooyinka qof iyo codka ah inkastoo haddaba ay socdaan haddana xoogga ugu badan waxaa geliyo guddiga doorashooyinka arrinta labaad ee ugu muhiimsan waa in xal loo helo bulaacadaha magaalada iyo meelihii biyo qabatanada ahaa xilli magaalada Muqdisho roobka oo bil ah hadda la daalaa dhacayso wadooyinka oo go'ay nadaafad darro oo qashin meelo badan buuxaan iyo dhibaatooyinka arrinta saddexaad ee muhiimka ahayd ee loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay ahayd inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka xigsado dadka ku nool magaaladan gaar ahaan dadka haldoorada ah siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo xataa qabaa'ilka laakiin waxaa muuqata inay joogto halkii hore meel ka daran oo gudoomiyaha gobolka Banaadir xataa xalin waayay dadka beelihiisa hoose ah iyo sidoo kale inay soo tarayaan tabashooyinka kale ee gudoomiyuhu laga qabo ee si joogto ah ayagoo dacwado iyo dooda ah xafiiska madaxweynaha u yaala dhammaan dhibaatooyinkaas waxaa u sii dheer shaqooyinkii kale ee gobolka Banaadir oo hakad ku jira dadkii oo xafiisyada taga subaxdii saxiixa kadib guryahooda aada ama shaqooyinka kale oo private ah dabadeedna u soo laabta galabtii 10 saac ilaa habeenkii kadibna saxiixa oo sul saara maalintii oo dhanna ma jirto wax shaqo ah oo gobolka ka socda shirkadihii ma shaqeeyaan sidoo kale shaqaalihii ma shaqeeyaan gobolkiina waxaa noqday meel damtay ama lagu kala haday culaysyadaas jira awgeed ayaa waxaa la warinayaa inuu ka fakarayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud rag saaxiibadiis ahna ay kula taliyeen in la bedelo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la magacaabay December 10keedii sanadkii 2024 taasoo ka dhigan inuu weli dhammaysanin muddo 6 bil ah qaar kale ayaa waxay ku doodayaan in weli fursad la siiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho maadaama uu ahaa nin qurba joog ah tan iyo burburkii oo dalka ka maqnaa dawladnimada Soomaaliya qaabka shaqo ee dalka ka jirta iyo bulshadiina oo san fahmin ilaa hadda dhowna oo baadagoob ugu jira halkii uu saldhigan lahaa ama uu degi lahaa kooxdaas waxay ku doodayaan in la gaarsiiyo ilaa 1 sano oo loogu daro 12 bil oo kale si isbedel ugu sameeyo shaqooyinkiisa laguna taliyo inuu isbedel dhab ah oo qabto ama oo keeno iyo in isbedel lagu sameeyo qaar ka mid ah ku xigeenadiis koox ayaa qabta doodaas halka koox kalena ay qabto inuu san wadi karin shaqooyinka gobolka oo ay tahay in isbedel lagu sameeyo laakiin lama oga go'aanka ugu dambeeya ee qaadan doonto madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasaare Xamse Cabdi Barre durba waxaa jira rag badan oo siyaasiyiin ah oo bilaabay inay xilkaas ay raadsadaan iyaga oo madaxweynaha u geystay xildhibaano qaar iyagii si gaar ula kulmay iyo sidoo kale xubno kale oo raadinaya doodahaas oo dhan iyo baadagoobkaasna waxay timid markii la ogaaday xogta ah in madaxweynuhu oo qoys ka maraya xaaladda gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo u shaqeeyeen oo dhalisan yahay Maxamed Axmed Amiir oo tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya dalka ka maqnaa oo ku noolaa America iyo qaybo ka mid ah Yurub gaar ahaan Britain oo Yurub hadda ka baxday iyo sidoo kale qurbaha inteeda kale ayay dad badan u arkaan inuusan magaaladan isbedel ku keeni karin halka qaar kalena ay u arkaan inuu yahay nin aqoon-yahana dawladaha dunida soo arkay oo magaalo isbedel dhab ah ku sameyn kara laakiin ugu dambeyntii waxaan eegi doonaa tallaabooyinka iyo go'aanka madaxweynuhu qaato waqtiga loo dheereen doona ma isaga isbedeli doono mase go'aan ayay dawladdu ka qaadan doontaa oo isbedel oo degdeg ayaa dhici doona ma wuxuu noqon doonaa gudoomiyihii ugu muddada xilhaynta yaraa gobolka Banaadir soo mara maadaama 6 bil iyadoo aan weli dhammaan hadda wax la iska weydiinayo shaqooyinkiisa iyo tayadiisa maamul aragtida adigana
qaybta sifaalada nawre muuqaalkan aan sii share garay haddii aad nagu cusubtana nagu soo biri aad u mahadsan